Bismillahi Raxmaani Raxiim. Haddii aad isku aragtid nabro shuruuc ah sida sawirka ka muuqda oo wata cuncun siyaado ah oo weliba habeenkii u daran iyo markaa biyo kulul ku qabaysatid, daawada xasaasiyaddana wax kuu tiri laadahay, guriga kula joogaan dad sidaadoo kale loo hayo, waxaa qabtiin ciladan ee aqoon u yeesha lana wadaaga bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada Eastern. Astaamaha kore waxaa lagu gartaa xanuunka isnidaamiska, afka qalaadna lagu dhaho scabies. Sida dad badan ay aaminsan yihiin, nadaafad darrida sabab ma ahan xanuunkan, laakiin waxaa keeno cayayaan loo yaqaano Sarcoptes scabiei sida sawirka ka muuqdo. Cayayaankan yaryar markuu qofka ku dhaco wuxuu ukumo ku dhalaa maqaarka hoostiisa, tan oo keento in xasaasiyad siyaado ah timaado. Isnidaamisku wuxuu dhaliyaa xajiin, dhibco gaduudan weliba jirka meelaha uu ka laalaabmo sida kilkilaha, saracda, qooraha, barida korkeeda, naasaha, faraha dhexdooda iyo xubinta taranka. Xanuunkan si dhaqso ah ayuu u faafaa. Hadduu qof guriga uu keeno, qoyska dhan way wada qaadi karaan. Waxaa lagu kala qaadaa istaabashada, dharkoo la wadaago, joodariga oo la isla jiifto, shukumaanada lagu tirtirto iyo xitaa alaabta iyo maacuunta. Xanuunkan aragti ayaa lagu gartaa, badanaa baaritaan uma baahdo. Markii la daaweynayo waa in qoyska oo dhan hal mar la wada daaweeyaa. Dharka, go'a sariirta ku goglan, foodaraha barkinta ku jiro, shukumaanada, kulli waa in biyo kulul lagu dhaqaa si jeermiska looga ciribtiro guriga. Waxaa xanuunkan loo isticmaalaa kareemyo loogu talagalay iyo kaniiniyaal. Daawo xasaasiyad waxba ka tari mayso, xalna kuuma ahan ee fadlan la soo xiriir dhakhtarka maqaarka oo aad maalin walba ka helaysid xarunta. Waana mahadsantahay.